بسم الله الحمد لله sida aad la socotaanba maalmihii ugu dambeeyay waxaa ka jiray gobolka bari ee Puntland kacdoon shacab oo ku salaysan cabashooyin shacabka ka imanayay oo ay waxyaabo kala duwan ay ka cabanayeen waxyaabaha ay ka cabanayeen waxaa ka mid ah musuqmaasuq baahsan oo ka jira wadanka awood qaybsiga wadanka oo si khaldan loo isticmaalo hantidii dawladda oo si khaldan loo isticmaalo iyo qabaa'ilka gobolka bari dega hadday yihiin qabaa'il iyo hadday yihiin shakhsiyaadkooda muuqda oo taarget laga dhigtay arrimo badan oo noocaas oo ay shacabku ka cabanayeen baa jirtay in muddo ah shaqooyinka oo aan loo sinayn baa ka mid ah fursadaha shaqo iyo fursadaha nololeed oo aan loo sinayn intaba arrimaha mudday dadku si silmiya uga cabanayeen cabashooyinkoodii baa waxay soo gaareen ilaa iyo maantay maamulka uu madaxweynaha ka yahay cabdiweli maxamed cali gaas oo maamul ku sifoobay dictatornimo iyo inuu dadka shacabka caburiyo waxa uu uga jawaabay arrintaa in uu dadkii laayo qaybna uu xerxero dhalinyaradii aqoon-yahankii gabdhihii waxgaradkii siyaasiyiintii culamaa udiinkii ganacsatadii cidna isagoo aan u aabayeelayn waxa uu ku hayay caburin iyo inuu isticmaalo ciidamo beeleedyo beesha uu ka soo jeedo iyo ciidamo loogu talagalay in ay la dagaalamaan argagixisada iyo dadka xag jirka ah oo nidaamka magaranaysaa soomaaliya ka jiray oo ama al-shabaabka ama waxa lamidkaa loogu talagalay ciidamada waxaa ka mid ah ciidanka martinka ama mariiniska oo ay dowladda imaaraadku ay fankooda bixiso ciidamada waxay ka qayb galeen caburintii shacabka waxay ka qayb galeen in loo adeegsado in lagu laayo dad shacaba waxaa lamida oo iyagana hormuud ka ah ciidamada loo yaqaano BSF-ka ciidamadaas oo ah ciidamo iyagana ay taabackooda iyo mushaharkoodaba ay bixiyaan dowladda Mareykanka ciidamada iyaguna waxay noqdeen ciidamada hormuudka ka ah laynta shacabka iyagoo awalba ciidan qabiil ahaa oo hal qabiil ay magaranaysaa gaar u lahayd haddana waxay ku darsadeen inay shacabkii ay ku laayaan shawaaricda waayahay gudoomiye sidaanu la soconno wararku sheegayaan dad ayaa ku dhintay dad ayaa ku dhaawacmay intaasoo dhan la gaarayo dagaal meesha laga roogayo labada dhinac miyaysan ahayn inaad wada fadhiisataan oo wada hadal ku dhamaysaan waxyaalaha la kala tabanayo idinka iyo dowladda Puntland aad baa umahadsan tahay annagu mar walba waxaanu wax ku raadinaynay si nabadgelyo ah in la ilaaliyo xasiloonida iyo wanaagga la haysto baanu anagu mar walba ku talinaynay laakiin dhinaca kale oo uu cabdiweli maxamed cali gaas uu horjoogaha ka yahay marna ma suurtoobin arrintaa inay dhacdo waxaana ku talbaynayaa oo daliil u ah bilowgii kacdoonka kan markii uu ka soo laabtay cabdiweli markii uu ka soo laabtay kismaayo annagu kulan baanu yeelanay kulankaa iskuma aanan afgaran waxaanu kulanka wada qaadanay madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha iyo anigaanu ahayn saddexdeedaanu ahayn 2 saacadood baanu wada fadhinay dadku waxa ay ka cabanayaan iyo waxa ay xaqa u leeyihiin baanu ka wada hadalnay laakiin wax garowshaa kama uusan bixin cabdiweli go-aankiisana waxa uu ahaa in uu awood ku maquuniyo cidnana uu si magaranaysaa nabadgelyo leh oo magaranaysaa xasilooni leh uusan ula hadlin go-aankiisu halkaasuu ahaa halkaasaanu ku kala tagnay waxaa iga dambeeyey oo la kulmay guddi waxgarad iyo cuqaal ah oo la yidhaahdo guddiga danwadaag ee beelaha gobolka bari guddigaas hadday la kulmeenna sidoo kale wax garowshiyaa kama aysan helin kadibna waxaa lagu kala tegay xamar baan tegayaa buu yidhi waa soo noqonayaa soo noqodkayga baynu kulan kala yeelanaa hadduu xamar tegay oo uu soo noqday dhaguhu ka furaystay cidna lama uusan kulmin guddigaana lama uusan kulmin umana uusan yeeran halkaasuu hawshiisii ka watay iyo caburintiisii iyo inuu shacabkii iyo dadyowgii ku dhaqanaa gobolka bari uu caburintaa ku wado
waxaa jiray dhalinyaro aqoon-yahan ah oo dhalinyarada aqoon-yahanka iyagana danwadaag shirar ay wateen baa lagu weeraray guryihii ay ku shirayeen waxaa la isku dayay in la laayo dhaawacyaa loo geystay oo jirdil ah qaybtoodna waa la xirxiray oo weli xabsiyaday ku jiraan waxaa ka mid a dadka xiran gudoomiyaha dhalinyarada aqoon-yahanka ah ee danwadaag waxaa ka mid a sidoo kale nin dhaqan ah oo suldaan ah oo la yidhaahdo faysal xasan dubbe oo isagana lagu weeraray magaalada gudaheeda oo soo xiray labadaba jeelka kore bay ku xiran yihiin maxaabiista waaweyn lagu xiro waayahay gudoomiye sidaan ognahay waxaad ahayd gudoomiyihii hore ee gobolka bari hadda cabasho badan ayaad sheegtay sadbursi iyo waxyaalo aada u fara badan shalasho miyaanay jirin markii aad ahayd gudoomiyaha gobolka bari waa la socon karaa markii gudoomiyaha laga qaaday cabdisamed maxamed galab ayuu waxa kan oo dhan hadda uu abaabulaya miyaysan ahayn taasi shilay aan jirin ee aad maanta talaysaa aad baa u mahadsan tahay su-aashaas waa su-aal munaasab ah qof kastana maskaxdiisa kusoo dhici karta waxaan rabaa halkaa inaan marka hore caddeeyo kacdoonka kan iyo cabashada kan shacabku ay wataan ma aha waxaan anigu ku dhaliyey ma aha waxaan anigu abaabulay anigu waddanka waa ka maqnaa markii aan xilka wareejiyey 29 bishii may 3 juun 2015 baan waddanka ka dhoofay waxaan ku soo noqday dhowaan waxaan imi shacabkii oo kacsan waxaan imi kacdoonkanoo jira waxaan imi iyagoo ay bulshada guddiye samaysteen guddiyadii haweenka kuwii dhalinyarada kuwii cuqaasha iyo waxgaradka guddiyadii siyaasiyiinta guddiyadaasoo wada dhisan baan anigu waddanka kusoo noqday haddii ay soo booqdeen oo aanu shirar wada gallayna waxa ay ka hadlayaan waxay wada noqotay wax loojig ah xilligaan anigu joogay waa ay jirtay sadbursi waa ay jirtay in aan la tixgelin dadka ka soo jeeda gobolkan bari puntland waa ka warhaysaan waxay ahayd beelo walaalo ah oo isu yimid 98 waxna isku darsaday xilligaa wax la dhisanayay waxaa wax lagu dhistay si cafuwi ah oo aan xisaabtan lahayn oo in maamul la helo unbaa dadka ka go'nay xilliga ku habboon in lagu xisaabtamaana lagu ballamay awood qaybsi dhammaystiran xilligaa wax laguma dhisan waxaa tanaasulay oo awoodahay lahaayeen intoodii badnaa ka tanaasulay waxay ahaayeen qabaa'ilka iyo beelaha ka soo jeeda gobolkan bari puntland gobolka ugu weyn waa gobolkan bari gobolka ugu dhaqaalaha badan oo dhaqaalaha lafdhabarka puntland oo uu ka soo baxana waa gobolkan saasay tahay mudnaantii ay lahaayeen ma aysan helin dadku intaa waa ay ku saburayeen intaa waa ay ku dulqaadanayeen mas-uuliyiintii annaga naga horreysay ee gobolkan ka soo jeeday ama heer gobol mas-uuliyiin noqotay ama dowladda puntland ee dhexe golaha xukuumadda galay mar walba dadka waxaa lagu qancin jiray hala dul qaato xilli baa iman doona aynu gaaro inaynu xisaabtanno xilligii baa la gaaray puntland 17 sano jirtay gobolladii kale ee puntland waxay noqdeen gobollo dhismay oo horumar ballaaran uu ka dhacay mashaariic fara badan laga fuliyey xarumihii dowladda oo dhan laga furay waxaa tiri marka in la xisaabtamo mar haddii puntland qaybo ka mida aysan horumar uusan ka socon shacabkoodii wax horumara aan loo hayn awoodihii dowladda aan loo sinayn waktigana uu yahay wakti cid walba ay xisaabtami karto oo cid walba ay ka hadli karto waxa muuqda iyo danaha muuqda waxaa la mida waxyaabaha dadku ay aadka ugu baraarugeen intii haddeer u dambaysay oo xukuumadda cabdiweli ay jirtay waxaa soo badanaysay in cabdiweli uu joogteeyo oo uu sameeyo si waali ah oo xaddhaaf ah in uu beesha uu ka soo jeedo ma garanaysaa wixii masaalixda dowladda lahayd oo dhan uu gacanta u geliyo gobolkan bari oo aan haddeer joogan idinkala hadlayana shaqadeedii hadday tahay mid ciidan iyo hadday tahay mid shaqaalo rayid ahna completely uu gacanta u geliyo beesha uu ka soo jeedo waxyaabaha kacdoonka keenay waa taa waxaa ugu dambaysay mashaariicda airportka wixii mashaariic airportka uu lahaa waxa uu gacanta u geliyey oo uu sidii qaaraankii ugu qaybiyey beesha uu ka soo jeedo arrimahaasaa kacdoonka keenay oo keenay dadku inay ka jawaabaan gudoomiye sidaan ognahay waxa bari ka soo jeeda xildhibaano aad u fara badan xildhibaanada ugu faraha badan baad haystaa wasiiro ayaa ka soo jeeda sida aad sheegaysid airport iyo tikad intaba waa laynii sameeyey ilaha dhaqaale ee puntland ugu badan bari bay ka yimaadaa maxaa adiga gudoomiye ahaan cabdisamed maxamed galan ka qayraalsiinaya oo u maraya halka oo loo leeyahay wasiiradii iyo xildhibaanadii ka soo jeeday gobolka bari soo lays odhan maayo
ومحسن تهي سيستم هدير جرا بنتلان كجرا وسيستم دكتاتورنimo ku sifooday waxaan anigu oran karaa anigu markii aan shaqaynayay waxa aan shaqadayda ku waayay waxa ay ahayd qadiyada laftigeeda waxa dhacday taliyaha qaybta gobolka bari cabdixakiin sayid oo ninka hadeer jooga ah baa markaan anigu joogay waxa uu ahaa inaan akhlaaq lahayn dishibliin lahayn aqoon u lahayn shaqada uu hayay waxa lagu keenay beel ahaan cabdiweli maxamed cali gaas iyo isagu waa ilmaadeer laxmiya maaha jifo maaha qabiil waa ilmaadeer laxmiya cabdiweli baa keenay khaladaad badan buu galay maadaamaan anigu gobarnarkii gobolka ahaa waxa aan ka qoray riboort dhammaystiran khaladaadkii uu galay oo tii ugu dambaysay ahayd nin ganacsada ah inuu xiray boobay hanti badan uu ka qaatay riboort dhammaystiran guddiga nabadgelyadan ka saxiixay uusan markaa isagu ku jirin 7 aanu nahay guddiga nabadgelyada marka aanu ahayn isaga marka laga reebay 6dii kale anigu aan ku jiro baanu riboort dhammaystiran ninkii maxbuuska ahna jeelkaan ugu tagnay wixii oo dhammaystiran baan qaaday waxaan geeyey garowe waxaan kula kulmay cabdiweli maxamed cali gaas waxaan hor dhigay dukumentigaas iyo barbawsal aan qoray nin ku habboon shaqada oo tababaran oo aad u sarreeyey oo ka soo jeeday beelaha gobolka beri dega in lagu bedelo taliyaha maadaama uu khaladaadkaa joogtaystay oo uu dembigaa ku jiro cabdiweli arrintaa igama hoos qaadin waana igula diray waxaanan aaminsanahay wax badanba uma dhexayn xilligii uu soo saaray dikreetada xilkaygaga qaaday iyo xilligii aan dacwaddaas gudbiyey waxaan marka aan aaminsanahay maadaama anigu aan shaqadaydii ku waayey war cadaalad ha la sameeyo wadada kan aad qabiilka ku keentay oo dadka sida khaldan ula dhaqmaya ha laga leexiyo meesha ragga aad ka hadlayso waxa ay u baqeen bosishinadooda waxa ay arkeen qaabka waddanka looga dhaqmayo waxa ay arkeen dictatornimada cabdiweli marka bosishinadooda iyaga oo u turaya awgeed bay la aaminsan yihiin laakiin way arkeen qaladaad ku jira waayahay guddoomiye websaydada ka soo baxaya ama idaacadaha ka soo baxaya puntland waxay qorayaan inaad dhowaan ka soo noqotay magaalada muqdisho waxay sheegayaan inaad ka mid ahayd jamal jadiid oo weliba aad kharash iyo lacag ka soo qaadatay si aad puntland u gelisid kala laabtay taa iyada laftigeeda ay websaydada iyo warbaahinta puntland qorayso maxaa ka jira aad baa u mahadsan tahay waxaa wax aad iyo aad looga xishooda ah ama looga sariigto in websaydyo ama qayb ka mida meediyaha ay dacayaad noocaas oo kale ay faafiyaan waxaanu u sheegaynaa muqdisho waa caasimadii soomaaliya waa meeshii soomaaliya maanta maskaxda u ahayd waa meesha keliya maantay soomaali ay wadaagto waa la isugu tegayaa siyaasigaa tegaya ganacsadahaa tegaya dhaqankaa tegaya qof walba oo soomaaliyeed baa tegaya waxaan kaloo u sheegaynaa dhammaantayada intaanan puntland iman annagu waxaanu ku dhalannay muqdisho iyadaanu ku kornay hantidayadii maguurtada ahayd oo dhanna muqdishoay taallaa inaanu marka muqdisho tagno ma aha ceeb mana aha dembi muqdisho waa tagnay horaanu u tagnay waa tegi doonnaa waxaana wanaagsan wax walba inay caddayn yeeshaan inay iska hadlaan dadku macno ma samaynayso muqdisho waa tagnay laakiin waxaanu u tagnay waxay ahaayeen dana brifate ah waxaanu u tagnay inaanu masiirka soomaaliyeed maadaama caasimadii soomaaliya tahay inaanu tala ku biirino waxaanu u tagnay say wax u socdaan inaanu ogaano waxaanu u tagnay inaanu ka qayb qaadano horumarka muqdisho ka socda oo si xawliya ku socda arrimahaasaanu u tagnay cidda iyadu caddayn haysata inaanu anagu aanu ama damjadiid ha ku magacaabeen ama magac kale ha u bixiyeen inaanu ururo gaara aanu ka tirsan ama inaan sida ay tilmaamayaan aanu heshiis ku soo gallay puntland inaanu burburino iyagaa laga rabaa caddayntooda taa intaasaan kaga baxaya waayahay guddi maanta waxa dhacay dagaal ayaa dhacay intu qorayso iyo intuba ay sheegeen waxay yidhahdeen waxaanu qabanay ilaalada cabdisamed maxamed galad waxay sheegeen inay jiraan dhaawacyo iyo dhimasho adiga laftigaada waxa la yidhi waa lagu qabtay laakiin hadda waxaanu kolley caddayn inaanu kaa wacnay bari oo nagala hadlay oo taas adigu hadda laguma xidhin maxaad odhanaysaa dhaawaca iyo ka inusaan dhintay aa nool suu dagaal ku dhacay aan soo gaaro dhiga aad baa umahadsantihiin aad baad umahadsantihiin gelinkii hore annaga hadda waxay noo tahay maalintii labaad ee subaxdii talaadada gelinkii hore ee shalay ee maalintii isniinta ahayd
dhalinyaro mudaaharaaday baa jirtay sida aanu maqashoonahay anigu waxaan joogay xaruntii aan ka deganaa magaalada boosaaso dhalinyaradaas hadday mudaaharaadeen mudaaharaad silmiyu ahaa lay sheegay waxaa loogu jawaabay caburin iyo in la dul keenay ciidanka BSF-ka ee uu maraykanku mushaharka siiyo iyo ciidanka mariiniska ah ee imaaraasku uu siiyo mushaharka iyo ciidan beeleed ka amar qaadanayay cabdiweli maxaa caligaas oo ciidanka madaxtooyada ahaa oo ciidan beesha uu cabdiweli ka soo jeedo oo soocan ah dadkii waa la laayay dhimasho iyo dhaawacba dadkii waa loo geystay qaybna waa la xirxiray arrintaasaan anagu ogeyn waxaanu fadhinay xaruntii aan ka deganaa magaalada boosaaso sifa sharciya baan anigu waxaan u leeyahay ilaaladayda gaarka ah haddaan shaqada ka baxay oo aan xilka wareejiyey cabdiweli laftigiisa ilaaladii aniga ii qoray oo sharciga ahayd qayb ka mida ii reebay ilaaladiibuu qayb ka mida ii reebay warqad dikreetaha buuna ku reebay gunnadayda iyo nolosha ilaaladayda iyo inta noloshayda aniga wixii kharasha iyo dhaqaale ahaa dikreetuu qoray dikreetadaasaanu haysanay dhalinyaradu saasay xarunta u joogeen haddaan maqnaa haddaan imin oo ugu imid waxaa ila joogay gaadiidka dagaalka ah oo ka mid ahaa gaadiidkii aniga ammaankayga waagii hore sugi jiray markii aan anigu shaqada ka baxayna waxa ay ka qayb galeen difaaca dalka